anoo daacada oo dangooniya doodku gali nabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxuuniya iska dayo dadka la dadka بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دمانبا خيارتنا داوريساي كسور دوادا مركلة إيه برنامج كيني كفتك السياسة وحادا لابا هلكا كداوتان تضبات كيبا هالمر ساعدها نوكرا داوديال ما أنت وحردين هنا برنامج آدي آدو حسين دونتان وحكرا أو ما أنت هلكا السونا نقوه هدية أو بوقشي دي سيكسور نغضي وياسين دعالي أو ذكرنيسان ياسين waxaan u malaynayaa barnaamij gaar ah ayuu u baahan yahay inaan u qabanno oo aan interview kaga qaadno wuxuu waddanka ka soo arkay balse isaga in yar wax yar inoo sheegi doona haddii ilaahay awoodiisa ina siiyo marka waxaan hadda ku soo dhaweynayaa cali iyo wuxuu maanta inoo hayo cali bal qodobo fara badan baa inoo hayaa maanta riyas horta maad qosolka yara ku dhufatid dadku mudday ka raayay si dadku kuu gartadeen qaar baa moodo qof ku eegina ku la isbedel badan baa jiray waaye bal marka ugu horeysa qodobo fara badan baa inoo hayaa waxaa ka mid ah wasiir waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland oo shaqadii ka eriyey nin wasiira oo ka tirsan puntland isagoo ninkaas xilligaa ku sugnaa magaalada muqdisho waxaanu eegi doonaa dhibaatada qowmiyadda oromada iyo soomaalida ku dhex martay kilalka oromada waxaanu eegi doonaa iyagana qaadkii oo laga joojiyey magaalada hargeysa ka imanayey hawadaay oo imika keensaday qaad kaloo ka yimid waddanka kenya saamaynta uu ku yeelanayo meesha la yidhaahdo somalilan qodobada iyo sheekadii maanta iyo qaar kaloo inoo qarson ayaynu usoo gudbin doonaa waa hagaag daawadayaal qodobada iyo qaar kaloo badan ayaa daawo doontaan goordhow haddii allah awoodila ogolaado okay waaye aan ku bilaabo waxaan ku bilaabaya marka ugu horeysa lacagtii nooraadha ahayd ama naqdiga ahayd ee puntland waa tii dhibaata ay ka taagneed sicir bara la sameeyey lacagtuna si aad la socotaan tii gabooday ayaa la joojiyey mid cusub oo dee laiska dabacdo dhowr shir ka sheekeen oo mashiinadii dee balaada ayaa puntland weli wadaa markaa dadkiibaa isla sara kacay nimaan dollar sirin dib ma qadayn karayo hawshaasi markii halkaa ay gaadhay ayaa magaalooyin badan nin reermiyi baa lacagtiisi la imanaya magaalo markaasaa la odhanaya adeer ma qadayn kartid ya nin baa nin aasaya oo xafaarkii baa la odhanaya hooy markaas ma qaadanayo intaana ninkan aasin lacagtii kale ay keena dhibaatada qaar baa markaa magaalooyin puntland ka mid a ayaa lacagtaa daraaddeed waxay noqday somalilan waryaa siyaasaddu showa balaayo siyaasaddu border kuma xidhna waxay ku xidhan tahay wax kasta oo markay caqabad kugu noqdaan ay mad ka baxaysaa magaalada ceelbo degmada ceelbo waxay ka tirsan tahay gobolka sanaag dabeeto markii lacagtii dee ay magaaladii madaxa isla gashay oo u shaqayn weyday ayaa nin walba xanaaqay marka waxay leeyihiin somalilaney naga soo gaaro oo laankiina noo keena hadduu allihiin aan leeyahay puntlandey adag nadaaya haddaba idinka iyo nooraadhiina gabooday reeraha isla aadahaa bal daawasho wanaagsan video klibka marka hore shalay lacagtaan qaatay iyo dadkaa lacagtaan qaatay cidina wayga qaadan weyey hadda lacagii halkaa lagu guraayo dadkiina shaqadii buu u baahan yahay oo shaqay baa leedahay marka waxaan codsanayaa waxa kan la kala guraayo wax loo adkaysan karo maaha in naloo soo daayo lacagta laanka ah oo la isticmaalo saas baanu doonaynaa waanu ka codsanaynaa anagu waxaanu nahay shacabka degmada ceel buu ku dhaqan waxaanu nahay dadka muruqmaalka ee wastaadada ee guryaha dhisa soo ma taamin waxaanu qaadan jirnay lacagta cadcadka ee Soomaaliga ah oo marba dhinac loo dhigo haddana waxayna yiraahdeen la qaadan maayo puntland waxa la qaaday lacagta kala guraya loo ablaabay awalba ku tabcaanaha hadda waxaan leenahay madaxda sharafta leh ee Soomaaliland madaxweynaha wasiirada waxaan ku codsanaynaa inay noo soo bilaabaan lacagta laanka noo soo dhigaan ninka intaa haysto magaalada la soo galay halkaan soo galay koob shaaha waa ku cabbi waayey
كوب شاها لما ربوا بالي واقع وحن عطنا عكا صعونا يسئلنا لو سودايا Soomaaliland وسوماليا منو فضلان لعagteeda dooni meeno dollarkeeda Soomaaliland baan rabnaa waa gartay waayahay waa kaa dadka qaylinaya ha waxaan u tegi doonaa isla puntland madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiim camey ayaa hore waa inaga u sheegnay inuu shaqada uga saaray taliyihii ciidanka booliska weli safetiisi buu sitaa wuxuu shaqada ka saaray nin ah wasiirka u qaabilsan xidhiirka waxaa la yidhahdaa wasiiru dawlaha wasiiru dawlaha madaxtooyada ee xidhiirka gobolada waa gartay waxaa magaciisa la yidhahdaa bashiir cabdiraxmaan gurxan ninkaasuu eriyey ninkaasuu shaqadii ka eriyey uu ka fariisiiyey marka ninku jaleenimadii uu ka baxay horta jaba hadda maaha ninka cabdixakiim dee horta saylici uu dhaafay xoogaa ku dhaafay saylici hal darajo ka sarreeya waa gartay wuxuu shaqadii ka eriyey ninka muxuu shaqada u eriyey ninkaas wuxuu tegey muqdisho dabeetuna cabdiweli maxamed calgaas ama puntland dowladda federaalka waxyaala badan bay ku khilaafsanaayeen cabdiweli waxyaalaha uu ku khilaafsanaa federaalka waxaa ka mid a habkii dhexdhexaadinta ahayd ee dowladda federaalka ay u qaadatay sacuudi arabiya iyo khaliijka iyo qatar arrimihii ay isku hayeen waa ti dhex ka noqotay puntland waxay tiri annagu dhex ka noqon mayno annagu waxaanu la jirnaa sacuudi arabiya iyo imaaraat halkaa way ku kala duwanaayeen waa gartay qalbi dhagax waa imika toddobaad kasta dawaynan qalbi dhagaxa ku daraa ha way nahaystay qalbi dhagax waa tii dawladdu ay u dhiibtay dawladda etoobiya waayahay cabdiweli iyo puntland ayaa arrintii ka soo horjeestay in qalbi dhagaxba loo dhiibo maaha buntland cadowga haddana iyagaaba dhiibi jiray wada cajiibkani marka maxaa dhacday wasiirkan aan ku sheegay inuu madaxtooyada wasiir dawlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada puntland master bashiir cabdiraxmaan gurxan ayaa xamar isagoo jooga wuxuu yidhi dawladda federaalka waanu ku taageersannahay haddaanu puntland nahay in qalbi dhagax ay u dhiibaan etoobiya waa gartay marka wuxuu khilaafayaa wasiirkaasi amarkii madaxweynaha madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo isagu diidanaa in qalbi dhagax loo dhibo etoobiya kasoo horjeeday marka ninkaas wuxuu haddaan puntland nahay waan ku taageersannahay federaalku inay gacanta u geliyaan ninka waa gartay hadalkaasi markuu ka soo yeedhay ayuu halkiisii shaqada kaga eriyey cabdixakiim camey ya waa gartay marka okay waxaanu eegaynaa markaa puntland ma dowladda etoobiya saaxiib lilaahiyay yihiin oo sharubaha iska dhunkadaan isagoo cadowgooda mise dana gaaraa jira dhinacan waxay ka yidhaahdeen in loo dhiibo qalbi dhagax etoobiya waa arrin saxa maha waa dowlad cadowa oo nin muwaadina loo dhiibay bal imka waxaanu eegaynaa cabdiweli iyadoo waraysigan uu ku baxay luqadda ingiriisda ayuu wuxuu leeyahay cadow guud baanu wada leenahay annaga etoobiya oo haddaanu puntland nahay oo waxa cadowgeeda kuwaad waa al-shabaab iyo onlf saasuu leeyahay bal aynu daawano daawasho wanaagsan consider our relationship with Ethiopia, particularly the security sector, very crucial and important for Puntland. We have a common enemy, for example, Al-Shabaab and ONLF. We have so having common enemy dictates that we have a common strategy against this enemy. So it's essential for us to cooperate. And our security cooperation is at its highest. One of the reasons I came here also this particular visit is to beef up that security, to make sure that we don't have safe havens for rogue elements like Al-Shabaab, like ONLF and others. waa flip-flop marka labada jeer kiibu waanayday waa flip-flopsi yaa caadiga ahaa marna ONLF waa cadow leeyahay marna wuxuu leeyahay ONLF yaan cadowga loo dhiibin marka puntland cadowgeedii saxda ahaa weli may sheegin may garan waaya weli etoobiyaan ku jirnaa sidaad la socotaan qowmiyadda oromada ayaa gadood ay sameeyeen waxay ku direen dad lagu tilmaamay inay ka badnaayeen 30 qof oo shalay aas wadareed loogu sameeyey magaalada Jigjiga ilaahay ha u naxariisto dadkaas dhammaantood waxay ahaayeen Soomaali caradaas waxay keentay in Somaliland oo qaad ka soo qaadan jirtay ay joojiso qaadkii in nin askari oo xanaaqsan oo isna Somaliland uu laba nin dilo oo Oromo ah dabeeto tenshakii dadka xiisad baa kacday xiisadii waxay samaysay eegna horta Oromadii ra'iislayaasha
baalashlayaasha kuuliya Jaariyadaha. jaariyadaha waardiyaasha Waan gartay. waashmaanada waxa ahaa oo dhan ayaa wareer galay haye habeen hore niman dhalinyaro ah ayaa burar soo qaatay dabeetana wax alla wixii oroma ah ku bilaabeen ayay ku bilaabeen Waan si xun buu u dhaawaceen qaarkood waan gartay dee kii alla kii agsan afka yeeshay adi madgaran waad ku iman madgaran yadaaba way ku dhuftaan. nimankii odayaasha ayaa cagaa wax ka dayey ayaa ku dhacday kabtidii arkay ayaa ka dhacday haye oromadii baa laga waayay magaalada xiisaddu halkaa markay maraysa oo arrintaasu ahayd dee genocide xasuuq ay sameeyeen qolada oromadu ayaa waxay salka ku haysay horta arrin siyaasadeed siyaasadu dhul ballaarsi baa jiray qowmiyadda oromada ay ku dhaqaaqeen way ku hayeen dadka way ku hayeen dadka ku dhaqan ee soomaalida meesha waa arrin siyaasado xaggaa u taala waayahay waxay la yaabiin oromada marka ugu horeysa labada nin ee hargeysa la geedinay soddonkaa ma arkaan sababto waa maxay waxay moodayaan dadka la laayay ee soomaalida ah iyo somaliland dadka jooga inay laba soomaali kala yihiin marka waxay isleeyihiin reer somaliland kala qaadeen iyaga waxba kamid aan dilinay labadan hayda ka dileen ma garanayaan dadkani inay dee ama calanka doona hasitaan iyo dawladda doona ku jiraan inay Soomaali yihiin waa yihiin dadkoodii dadka laaya waayahay ormadii ayaa markaa gabasho ilaa hadda ku jirta qaadkii markaa xaggiisii ayaanu eegi doonaa qaadkii waa la joojiyey awaday ayaa la joojiyey waxaa la doontay miirow waan gartay reer hargeysana miirow uma bilownaba xitaa isku si looma cuno marka baalku waa fiirasho xunya marka war isku siba looma cuno dee kan waa la diiranaya kan waa la diiranaya diirashadiina ilkaba maayaan maan malinta dadku warta waxaan eegi doonaa murqaankii iyo reer Somaliland waxa kala qabsaday warta qaadkii markuu u yimi oo ay bilaabayeen ay reer Sanaag iyo Sool ayay weydiinayeen baalka ninka xamarku cuni jiray see loo cunaa intee laga wada fadhiyaya ma geedka laga diiranaya ma caleenta la cunaya reer Sool iyo Sanaag turjumaan bay isu bedeleen qaadka waan gartay miiro shaqooyin fiican ayay heleen intii qaadka la joojiyey waxay kaloo kala garanayaan inuu qaadkani markaad iibsanaysid inuu yar yahay inuu xun yahay taniga bedel taniga ninka reer hargeysi si lagu soo taagan buu qaadanaya qaadkii baa la fadhiistay waayahay qaadkii baa la cunay horta labadii maalmood u horreeyey magaalada buuxsantay dad raggaan soo bixi jirin baa soo baxay ayaa soo baxay oo shaar waaweyn dabeetana magaalada waxaa ka bilaabatay arrimo fara badan horta qaar baa dadka la yaab waxay ku leeyihin wareer axmed ma sidaan aad u dheereen fadhigiisu baa arki jiray toddobadaa ka soo dusayay Djibouti waxaa ka maqli jiray nin baa markuu qaydayo ayuu saa u saaxan jiray markaasuu wahsi dadka xoran jiray saa idhaha shaha waa loogu shubaa maalintii dambe ayuu marka raggii uu la fadhiisanayay oo wada busy ciidamada shaha u shubinay markaasuu soo sara fadhiistay marka niman weligiiba arag soo sara fadhiya ayin baa yidhi al warya abdicabdi aaga u fadhiisteen markaasaa ninkii la daawaday koobkii markuu meesha soo dhigtay oo aan weli fadhiisan ayaa mid kale wuxuu yidhi oo ninku mar hadduu soo fadhiisto malaha noqon ba kari maayo de markaasuu yidhi war habow celi hargeysa waxaa ka bilaabatay waa ninku dheeraa waa ninku hadal macaana soo damaad garan nin saaxiibka halkan jooga wuxuu ii sheegay reer hargeysa midaan maadarna bil waa soo wacao telefoon wuxuu igu yidhi warnin waxaan ku weydiiyey ii warno hoos buu wareysay horta ciyaalka waa misa weligiiba weydiiyey adeerna uu yahay 7 sanadood ima weydiiyey su-aasha waan gartay soo damaad garan waxaa hargeysa isbedelay oo ku badatay intii qaadkani la joojiyey tacsida magaalada baa la soo galay marka la islaamo oo waxaan ku weydiiyey hebelmeyo dhibay goorma 7 sano ka hor madaxu buxoodaan waa raalliga hawliye maan weyn si hawo kala lagu jiray moogta warbaha kani de wax balaayo naga yahay meeshu ba dadkii afarta dhaaftaa waxay leeyihiin wala hawla wala quwwata illa billah ma dhintay marka saas wariyaa dhintay dadka dhintay 10 years ago ayay ku taasleeyeen moogta qaar kalena kuwa dhoofay ayaana ogeyn waxay leeyihiin hebel miyuu dhintay marka leemay uu dhoofay ingiriis ku dhoofay populationkii dadka ayaa soo batay magaalada hargeysa ayaa iskala garan weeyay
markaasay qaar ku leeyihin dadkan cusub xageebay dadkan cusub waa oromadii oromada dad degaan baa ka dhexeeya war dadkiiba oromo qaar ayaa loo qaatay sheekada ugu qosolka badan waxa weeye reer Hargeysa show madaxweynaha Somaliland magaciisa ma bay qonta magaciisa toddobadii sanadood magaciisa saddexan ما يحين به وحوي قينين أحمد سيلايو 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 هل كم مري سيلايو بيلا مو شيء صوق قابيان مركز دتكو قيلوا يدعم كوب وحنا أحمد محمود مور كرام وين فواه بلفجو حوار مركز وحي بقى خدمية لكم مركو قيلينا قول لي هيا الكافرونيو قول لي هيا الكافرون ما خيكروا ما تقولوا لا تعبدون ما تعبدون ولا أنا عبدت ما عبدت وحبسوا خلديا مركز سيا القرآن كان وخلدين وين الصورة كانت دونته والله وانا خسته أحمد محمد سيلايو مركز الله ينورت أحمد محمد محمود أيها سيلا يلي أين بيرم وزير بأحمد ووزير هي مركز سامي ومدحونات دي ومدحون قرب مقع الله بحي وما الله بحنا وكي هو يدو بحسين وانت تشاتكم مغربين ويا dadka hadda maxaa la gudboon waxa iyana soo kordhay qodobka ku darayado dhadhanka cuntada iyo xanta برجع هرب بريس صورة دموع ما يوجين ندي ديكسن بوا نايم خذوا ما قلنا هالكي يسوس قبل بريس إم كنت تطلع عليه كاري عمل حوازير بكوا كم قبل بس ترى حاول ما صدر يشرينه لين هون عصفان قبل ما قدرنا نقول بالك صدر يا وشاهد هاي شيء وما قدرنا وكان قبل دي بقى كبا قيسا أنت تبغى دوات كايس تايو نيكي بقى ميكو واحد بقرنا يدي مركزا حلانو فرسان شرين بو فرسان أيوة فرسان قبل بس هو قليسا مركزو كليه ميانا هاي قبل حاس كده وقربة هشيس هذا توصل كور بيستري مقتل هذا دمر قربة هشيس نموجين مركز نيكي قربة وكعسبي نلقصب أيوة نقضي واحد كان سنة عيالكي وهو مريجي يد مرصاح كان شوية ملح وصاح الله تعالى وبل سياحة أبو انتظر أو إيك على رشة خربة قروية على الميسي خربة الميسي كي راح يقول نو بسوري بعض هذا حبيبي كذا ليه ويا ضد كده محل قدون ترى سمعنا قاد كي حدي أنا دين كريم وتروح أقدر أن كلون كدان قصير لوش لا كلون كنا أتعشى بعد باته قاد كورتين بيرتان وأورما يكينيات يوحكم مار أيه ده أنا قاد دين كريم مرضي سلا أو بير الله رعاه سيدا يمن تأكلوا عن خرج بدن كاجلين وحكوا وقتهم إن إذا أورما ضمبة إن اللي بدبلتين أنا قاد كسوق هذا وأنا قلت هذا سبب توه إمك إسأمك وده إسأمك dadku marka la isdiro laba qof iyo saddex qof iyo la iska diraa de afartan mar dul hada ma qarax xamar ka dhaca waxa ku dhintay lix qof de wasaatay ka Iraq ka dhaca Soomaal waxa ku marka maximum saddex qof ku dhintay qarax maanta afartan qof huwa walidi marka ormadu mar bay israacdaa marka ruuxi dilay konton seena wax dambe isaga dilin horta qaad haw doonanina dabeet iyagoo lacagti la ordiyay qaadka iyaga la imanay hargeysa يا العقوة أنا بايلك سوق اللي سير قالوا ذي بقى كعريامي قالوا ذي بقى كعريامي مرك عدة لبرية وريها رجيسة ولا هذه النقطة وين هذيك الجورة يقولوا لي ماذا عطلين لك شاء وأترى هذا وكيل بمدوني هذا على يوكل ورمت داي تشات كذا ورمت تشات كذا رسالة داي هذا كانوا وين سمينا يا أمبا سنبا بقصة قابل هذا واحد شفته ورا الشيء إن لوس موبي قاتك أرنكانا هل كسر خبح دونا وياه وإحنا نقول دونا قضب كله ولفتيسو وهالكي وبسيدة الصومالية حساسة ما قلت حساس هي وياه ودولة الفترة هالكا الصومالية دولة الفترة هالكا الصومالية الصومالية السلفون السلفون هذا الوحيدين كريم تام وحيرة عد بلي متبرر أوراني دا أوراني وعدك كصباحة سلفون مربع فايبريشن لو سميادو جرين بس كده يصعد marka dawladii federaalka Soomaaliya bariga hore sida telefoonka qeynaysa darram balago green biscuit hada green biscuit inta qalbiga silent inta qalbiga ay dhiibeen laba maqal karo deeq green townkood silence dawladii federaalka ayaa waxa jira shir lagu qaban doono bisha soo socota October way November bisha 12 ayaa wuxuu shirkaas ku dhici doonaa
waddanka jarmalka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida ayaa lagaga hadlaya lagu soo bandhigaya ayaa lagu soo bandhigaya dadka soomaalida daawanaya iminka ugu horeysa warkaa waan gartay inagaa ugu dunaya waa break news waa break news waaya waxa weeye waxaa ka qayb geli doona shirka 30 qof oo Soomaaliya 30 waxaa lagu eegi doonaa sida sheegnay dhaqanka Soomaaliya marka European waxay eegayaan dadkan cawaanka heshiin waayay ee diintii garan waayay ee bal dhaqanka in ay ku heshiin karaan oo marka dhaqan laga hadlayo inay dad leeyihiin inay nabad ku keeni karaan ayaa la eegaya waa shiro socon doona imika wixii ka dambeeya waan gartay 30 qof ayaa la siin doonaa fiisayaal lagu tago Jarmalka waxaa ka mas-uula wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Yuusuf Garaad uu yahay madaxdu yahay iyo wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliyeed oo Cabdiraxmaan Yariiso uu madaxu yahay okay 30 qof ayaa loo kala qaybiyay maamul goboleedyada Soomaaliya qolo walba in baa lagu qoray waaya gobol kasta waa ay dadka uga qayb galay dad dhaqanka Soomaaliya yaqaanaba ma هي أتوقع قال لي واحد سببت واضح ودد لقى إيبي ماشي كرسي وتهريب واسحنبارك يا عرب واسحنبارك يا كشكين مركب واحد اللي كرسي جيبه إلى قاعد صدق حتى بنكون أي بيرسون قف كيف لقى سي صدق حتى بنكون $100 صدق قف نوين هل كاس وحوي نص مليون نص مليون والعكس عن دولار مريكا يا تشيب سبعيسة واحد تشيب كل عدوان شابك يوسف يا عبد الرحمن يريسو ولبا حق يوسف بدي ولبا شابك حق وينو شابك يوسف هي ادوي حق كل عدوان طلع حاجه سبعيسة ولا يغني عبد الرحمن يريسو ويسوي اكسبيرينس وعلو لي ايوه لي هوري الموشي عبد الرحمن يريسو دو بقول هلا سو سيكوس لي اوكي xoolihii Soomaaliyeed ayaa sida loo ciyaariya dawladda Jarmalku ma oga in kuraasta la iibiyay ma bay u yeedhan baadii la iibinayo marka ugu horeysa nimanka loogu yeeray dhaqanka ayaaba dhaqan xumo wata dadin la isla baxay kii qaadanay waas ka mid iyagii baa dhaqan xumo marka calab waxay la tagayaan meeshii marka ilaa dhaqankiiba garanay waxay la tagayaan sodon wax rabaan dhuutaan marka tagaan oo aanay kala soo daaxirin ba meesha madooniyo anu magacadu waa wada qaana badankooda waa haya liis kan hayo afar qof midka idin soo qaado oo Puntland waxay shaa afar qof afar qof waa qaana magacadooda iyo meeshay ka kala yimaadeen waxa kaloo jira nin 10 kun keenayo 3 ku buuxsan weeyay oo laga qaaday meesha oo inta muraadila ila kun ba marka ku ayaa ka dhimay ninka miskiinka waan gartay dabeeto hadii ay ku riyahay idaacad kasta telefoon buu direysna u leeyahay waxa la waraysto wadiyada martii la qaadi waay marka ninka odagana waxaan baleynahay sometimes waxa jira wax khayrkaaga ama sharkaaga war tobankaaga kun iska hayso dalkaaga aamin kullu wada daawanaya khayrkaaga ku baacshtray taas oo khayr badan jarma ka soo saarmaysa waaya madaxda Soomaalida ay aad la xisaabtanta oo corruption ka ilaalisa ma jirto dawladdiina imika nabar baa gaadhayo nabarkii ninkii odayga la dhiibay gariirkii ku jira ayaa dhibaatada haysata marka haddii ay islaadaan xisaabtama wasiirka la xisaabtama baa oranaya laba dhagax horta maxay u dhiibnay marka soo warniga daa waxaaga wado ayna warniga aan soo qaadan waan gartay bisha 11keeda 30 qof ayaa beenbeenta ku baxaya oo markay shirka tagaan ama shirku dhamaado nin waliba galaya meesha shiro fil arb shirkana galaya badamo waxay metelayaan dadkaasi inagina metelayaan Soomaaliya abwaalintii metelayaan qoyaankii metelayaan duubabkii iyo odayaashii dhaqanka ayay metelayaan marka eg waniga hore u sheegnay dhibaatada Soomaaliya haysta weey nin baa soo fadhiisanaya meel nin buu wuxuu ku caayaya hebel oo wasiira ayaa ama xildhibaana waxa uu khamriga cabba wani khamriga cabba ayaa islaama wani khamriga cabba ayaa mas'uul noqon kara isaga flaas cabba maalin ay عجيب ما بارك isaga waa naqa isagii baa cabba flaas marka waxay ku fiican tahay ninka khamriga ninku caayaya inuu soo isagu cabin inaanu cabin isagu uu yahay nin saaxiib salaada oo cibaadaysan oo nin sharaf leh waa inuu nin kale farta ku fogeeyo waa ninkaas ha joojiyo laakiin adigoo xumaan wada marka xumaan kala tilmaantid wareerkeeda ma matalaysid marka dadkani
iyagaa dhaqan xumo imika samaynaya haddana dhaqankii soomaalida ayay ka qaybgelayaan waxay leeyihin soomaalida waxaa u dana sidan iyo sidan iyo sidan war idinka maxaa ku qiyaamaysan dadkii soomaaliyeedoo aad lacagtiini ugu fanishteen kuwa xaq u lahaa oo ka hadli lahaa arrimaha dhaqanka soomaalida dadka soomaaliyeed ee barnaamijkan daawada waxaan ku boorinaynaa xaq bay u leeyihin waxan waa xaqoodii inay ka daba tagaan oo la xisaabtamaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka soomaaliyeed arrintaasna waa arrin dhaba waa arrin dhaba oo jirta markii loo baado dowladda federaalka haddaynu soo weydiiso dadka iibsanaya waan u gudbi karnaa waqti dheer baana haystaan dabagal ku samayn karaa waqti dheer baa haystaan oo ilaa November waxaa laga yaabaa inaynu qaar ka ciideyno laakiin macalish waxaan leenahay dadkaaga iska aamin dad xalaal ah rabnaa inay baxaan dadkii qualifier-ka ahaa inta laga qaaday lacagta lacagtoodii intay qoyan tahay dib ha ula soo noqdaan oo 13 kuwa lacag badan hawlka ha ku qabsadaan waaya magaalooyinka Soomaalidu waa kuwii magaciyo u bixinayay dadka qaar moogta duca ugu badan ninka tuug hore ahaan jiray oo tuugnimada iska daaya waxay u bixiyeen xildhibaan hore gabdhaha burburan iyada ayran waxay u bixiyeen DB World waxaan eegaynaa maanta boosaasaa ka duwan ninka laga dhammaan waayo ee arrin isku muruga ee dibindaabyada badan maxnada badan ayaa waxay u bixiyaan DB World markaa daraad ayaa waxaa kasoo degay garoonka diyaaradaha madaxweynaha Puntland Cabdul Maxamed Gaas dabeetana intii saa ayaan beerahay boy DB World number 1 baa yimid wadhax magacbinta waayahay waxaanu tegi doonaa markii sheekadii maanta inagu barnaamijkeena soo gabagabayn doonaa oo waqtiga ka faa'iidaysan toddobaad kasta waxaan soo dirnaa hal sheeko oo ummadda Soomaaliya aan u soo jeedino oo iyadoo lafteedu ka qayb galaysa wacyigelinta iyo xusheega ummadda Soomaaliya beentan ku hadalay maanta waxaan ka hadli doonaa sheeko ku saabsan isqarxinta isqarxinta ma garanaysaa waa arrin adag isqarxinta ya الشباب ayaa waxay sameeyay qarxo fara badan oo dadku dhintaan sida hore sheegay marka xilligii al-shabaab ay u khatarsanayeen way qarxidu aad u badnaayeen ayaa in dhalinyaro Djibouti markii Djibouti uu isir kan nafs xogaa marka xagu ka tagay calaw xagu muqdisho ka tagay markuu tagay Djibouti ayuu u tagay meel degan oo la iska qaylay shan iyo toban dhalinyaro ayuu maalin la fadhiistay marka telefoonkiisa ama mobilkiisa ayuu ku jira social media message uu qorayo marka garbaha la isku hayaayo message kasto qorayo ninkan la socdo ka dhinaca ka xiga ayaa la akhrisanaya betro israada xagan kan wala durbo kan kala ku soo foorso la eega tags yarkiisa alla soo yeeyo ay garan waay marka labada nin ba aad oo socda marka wuxuu yiri garow ninka sida u gashaa إدادة هذا أخسر ما ورك واحد كستو غرام كانوا قصدين هيا كل شيء قصدين وحول شيء كسرين واقف ده مركي دم بيه أيش رنيك خارج لفتيس بتناول قري كل بلابي ما سيش عصب هم فرين عصب هويو أد بانكو سلامة يا وأن نبتة جيبوتي ما أنتوا حلا فرديا شن يتمن لنا يرى ورير جيبوتي جوردو طبعا دقيقة كوسي من كذب أيام سوق الحمد لله ماشي ياك هوي هذه مسؤول آخرت جنة إما بلنا مركز عسكريو 10 دقيقة كذب ويا مركز مسجد هذا شيء هويو يسود عيني هاي جنة يجيو شنو ما كل عجرة شنو ما كل عجرة جبوت ولا يراعي ويا بس قروح له دبت النيك اللي آخري أيه يصير قرحة هذيك قرطيوك وقبسين هاي يربو بحد قاد كيسي أيوة كبح كعر أرد بالسيداي توضح هنا دوايرته وحس الرجل لما مركم مال تلفون الجاري وكنا وحس السيداي سكب العوي أيوة تلفون كوري صدري وريها حمراوي مسخي كيف يا أبوي واحد هذا حمراوي كي لفدي من نبغى قطان ورا هذا يستشم بقول تقول بقول ورني كم كي لبعض بقصر على التلفون كي لبعض هلو وريها حمراوي لفدي مسخي كي هرب مغل كي مر كنوره حمراوي مسخي واكي يا
uu dhigaa saasuu telefoonka u wadaa golobid buu hayaa waana muraad dilaac midun baa yidhi waryahe ninkii hebel ahaa inuu ka dhigay baan maane dee qaraxun bay kaga dhigtay ninkii raaxa markaan iska qaylaya anuu iska qaylaya ila uu iska khaarijiyay dani muraadka kabalmo ninka muqdisho ka yimaada waa niman naxayno dee si waxaa dan ka lahay marka waxa ara carbeed noqonaya dee ninka Djibouti ayaa carab noqonaya mo ma uu khaarijiyay si baa uu khaarijiyay barnaamijkeeni maanta inta ayaynu ku soo koobaynaa intaan ka bixin yaasiin ayaynu ku jeedsanaynaa calow oon leenahay bal hal iyo laba wixii aad nooga sheegi karto waddanka kusoo aragtay waxaanay magaranaysaa aad la yaabtay ama ya horta su-aalka taa mid ka fudan haye intaad maqnayd aniga iyo bedri ayaa soo jirin jirna barnaamijka si kastoo la qosalno kaagii waan gaari wey markii dib waxaan sameeyay marka dadaal kasta sameeyay waxaan isku afgnaan oo ninkii malaakiniin lagu qoslo ayuu cunay reer Hargeysa iyo Aargaabay dhulka tagtay markuu u horeysa aniga iyo Badri maxay noo yaqaanaa magacyada noo yaqaanaa noo sheeg adiga hadii qoslay ku bixiyay aniga maxay noo yaqaanaa horta caliyow arinta ugu cajaa'ibka badan waxa weeyaan in markaan Soomaaliya ka digo qof walba waxba lagu gartaa anigu markaan qoslaalayo war kaftankii siyaasadda miyaa ku jirtay qosolka ku garanaya qosol kaliya u garanaya marka magacyada idinka leeyni bixiyay intii aan ka maqlaa barnaamijka qofka aan qoslin Aargaabay waxa lagu yaqaanaa Cali Xaraari بدرنا حلو يا قناة فرعت. والله ما قاعد. هاي بس قلنا كلا يا قناة. يا. مركا فرعت. فرعت. أنا وحكوا يا قنين. مقصلة. 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 دبا أكاد كلا هركسوا قاضي سقرا إيميل بعد حالا. بس تشوف يقول. مصبي محد ستي. بس أقول مين سؤال من شيء ما اللي بدينا مقصلة. يا. يا. وح مركا قصر كا. أبو يقول كونه. وحنا حستا. تلفزيون اللي صومالي أي نبى وحشي يشري برنامج لقى تحصيله تحصيل بلو ده بيشري أنا كل بلا بيشري إنا لله وإنا إليه راجعون أنت ما كل هذا فالبضع صح إنه تحصيله والله لا وحبار أنت مركزو شيء قدرت كده أنت برنامج كسر مدود ما أنت دمبر أي إسلام يقولوا هرفض صور مرة إسلام باتوا إنا لله وإنا إليه راجعون ونيجي تحصيله سوق رقد صقر عدسي برامج على جبته صلت بقى للشيء وكل المركز صمره وكان كي تعسل له يا بقى مركز صمره واي حبك سيدي برامج كده تكون دعوه يا سيدي علي هورتا ميلو بدل بان تجي Soomaaliya ka tagi dhinaca Puntland waa tagi dhinaca Somaliland waa tagi barnaamijkani waddanka gudihiisa aad baa lagu daawanay dadku waxa weey wax ka garanaysaa xamaasada mar meelaha soo maro soo lagu daawanayo ama laga hadlayo ayaan imanayay qofkii marka aan ag marayo waa garanaya kaftankii siyaasadda marka la yiraahdo isla markii waa soo boodiya in marka inay aad u daawadaan dadka gudaha jooga waliba aad u xiiseeyaan ayaa jirta waayo dad ku hadlaya wacdiga marka jira ayuu og yihiin dadka gudaha banaanka ma oga laakiin dadka gudaha leeyahay yaa dadka ma warraba waxay iyagu og yihiin oo maalin kasta ay arkayaan ayaad uga warantaa marka waa barnaamijka aad buu xiiseeya dadka qurbaha jooga waxna dhaween gaar ahaan reer Puntland marka meelahan joogaan wadigii tigay garowga sidee barnaamijka waxna reer Puntland waxaad ka garanaysaa qaabka iyo sida loo soo dhaweeyay ma xiiseynayaan barnaamijka dadka gudaha jooga hada jeer caliyow dadka qurba joogta ama noqdaan reer Puntland ama Somaliland ama Soomaalida kale waxa noqdaa hada jeer waxa ku qarfilin markii aad ka hadlaysid isla markii waa wuxuu bedelayaan in reer ka hadlaysid ama qof ka hadlaysid laakiin dadka gudaha jooga qabyaalad ma jirto gudaha kama jirto marka waxay ku qoslayaan taxqiiqda jirta marka wixii u sheegtay isla markii waa waanaya wixina uu socdaa waa socdaa dawoojiida wax la taaban kara ay arki karaa laakiin dadka hadiya banaanka jooga waa dad iska dhergay oo marka Allah marka tiraad Puntland oo qaadanaya meeyo meel iska leeyihiin ee ka dhaxayso على أنا قلنا ما جاي يوم بيورنا. قلت أنا ما نروح أسرع. dadka jiirasha dambe dhalinyaradu aad bay inoo lahayaan barnaamijkan waana xiiseeyaan odayaasha khaati kale taagan mooyaan waxaan ku garanayaa waxa invitation oo ii soo diray asmaad inaan u tago oo la soo joogo ay asmaan dhalinyaro joogta Garowe Qardho Berbera Burco Hargeysa meel ay balagubadle iyo invitation bay soo diray Muqdisho inta wada dhalinyaro marka waxaan ku yiri markii ilaahay idmo ayaan idin iman doona waana ballan qaad in gaalkacayaan ka tigi dhalinyaro iyana labada dhinac ee gaalkacayo koonfurta iyo waqooyiga ayaa iyaguna igu yidhi ilolo
noo imow dacwad ama invitation baan kusoo diray noo imow bay dhahay intaba waan ka aqbalay marka iyadoo meel fiican i marayso oo aan doonay inaan soo booqdo mar ay mar haddana waxaan sii qoladii muqdishaan email u diray waxaan ku waray dhax inuu ma iman karo imika muqdisho xilligan sidii qalbi dhagax ayaa suurtagala in dowladii diibteen dowladdu intay hadlayso oo arrimihii qalbi dhagaxa ka hadlayaan bal aan meelahan kale dhinacan kale dowladdu gariir ka baxayso oo rintankooda ku soo noqonaya marka waa nin iman kara laakiin inta ka horeysa ha gaalkacayna doo meeshii laga dhiibay ninka odaga iyo cadaado dhinaca xoogaa cabsi baa iga haysee laakiin meelahan kale waa ballan qaadaya meel aan tegi karo inaan soo mari doono marka gabagabadii barnaamijka haye bedri waa hagaag aad iyo aad ayo cali iyo yaasiin ba umahadsan yihiin barnaamijkeeni maanta halkaa ayaynu kusoo gabagabanaynaa tan iyo intaynu dib u kulmi doono waa Larry Production cali xaraare oo barnaamijka inoo soo jeediyey inoo soo qabanqaabiyey iyo waa waryaheenii yaasiin ducaale oo isaguna maanta halkan aad iyo aad magaranaysaa aan kusoo dhaweynay stuudiyaha iyo anigoo bedri waxaa ka tegin hadda qoladii maanta reer Sankalood oo waxaa kale oo maanta aanu halkan kula kulanay jaaliyadda ballaaran ee Soomaalida Sankalood ku nool oo aad iyo aad noogu soo dhaweeyay magaalada Sankalood waxaan leenahay dhammaantiinba aad iyo aad ayaad u salaamantiin waanan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaa iyo nabad gelyo anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga honesty